السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة سوماليان ومدة إسلام كيوادي السلام يا ميل كستوى جوجتان با waxaan doonayaa inaan in yar ka idhaahdo xildhibaan Abiib oo la xidhay iyo nimanka feerka isla dhacay golaha wakiilada. horta aan ku horeeya xadhiga xildhibaan Abiib. dadku waxay doonayaan inay reereeyaan, inay qabyaaladeeyaan, in siyaabo macnihii dad baa isku dayaya intay horta inay intaa ka faa'iidaystaan. hase ahaatee Somaliland reer kastaa lagu xidhaa, cid kastaa lagu xidhaa. maxaan ku dhahday majority-na dadka la xidho waxa ah beesha Isaaq. majority beesha Isaaq baa siyaasiyiinta iyo dadka siyaasadda lagu xidho. marka qolyaha doonaya inay qabiileeyaan ee reereeyaan horta waa ku khaldayin. hase ahaatee dowladda maanta joogta ayaa iyaduna waxay ka dhigtay xadhigii bilaa macnay ka dhigtay. qof kasta oo hadla wax yar iyo wax weyn wuxuu ku hadlaba waa la xidhayaa. xadhiguna xal maaha. wax allaala iyo wax weliba xadhiga siyaasiga ah ee ummadda siyaasiyan kaaga soo horjeeda xadhiga aad xidho wax guulo ku jira ma jiraan. waa sumcad darro, waa hoos u dhaca Somaliland. maxaan ku dhahday waa hoos u dhac Somaliland iyo siyaasadii halka ay maaragtay dee ummaddu way doodi jirtay weligeedba. waa la dad wadan aan ummaddu doodi karaynin, oonay wada hadli karaynin, oonay dhaliili karaynin, dee waxa weeyaan waa jeel weeye, waana dictatornimo weeye. marka horta inankaa waa la xidhay. ta labaad waxa la leeyahay hadda waxa uu u xidhan yahay kelmadii ahayd macni SLM dhaliishii uu soo jeediyey ururkii ama maxaan ku dhahay xaqu dirirkii SNM. walaalayaal horta kow SNM waxay ahayd waxaynu ku wada faano. horena waa u sheegay ayadaa dhashay, jabhadaasaa dhashay Somaliland. sharafta lagu wada degan yahay iyo maxaan ku idhaahday waxa madaxda lagu yahayba ayagaa keenay. hase ahaatee weli ma jabhad baynu nahay mise qaran baynu noqonay? dadkii maxaan ku dhahay inaga soo horjeeday oo sidaa uu ina Abiib sheegay xaafadooda ahaa, kuwii kale een ahayn, intiba maanta waa reer Somaliland. dalkay inala leeyiin, dowladday inala leeyiin. markii jabhadu soo gashay ee wadanka xoreysay dee waxa lagu heshiiyey inaynu wada dhisano qaran kuwii aynu xabadda iskala soo horjeednay. ayaga qudhooduna qaar ka mida oo dee mucaarad ku ah Somaliland waxay ku doodaan in la laayay oo jabhadii halkaa maxaan ku idhaahdayay halkaa ka jirtay inay maxaan ku idhahdayay dad laysay. waa dood. taa wuxuun baad kaga jawaabi kartaa inaad la socotay ood la jirtay ood ka baaldagaalamaysay dowladdii Afrika ugu awooda badnayd oo dad shacaba laynaysa iyo reer ayaad ka mid ahayd. markaa dadka la iska difaacayo ayuunbaad adna ku jirtay. dowladdii Afrika ugu weynayd maxaan ku dhahay ugu hubka badnayd ee ugu militariga badnayd ee ugu xoogganay dowladdii nooca ahayd oo shacabkeedii la dagaalamaysa ayaad adiguna ka mid ahayd ood qoriga u sidatay oo maxaan ku idhahdayay aad ka garab dagaalamaysa. marka haddii ay dad kaa dhinteen dee dad reeri kaamay dhiman, waxa kaa dhintay ciidamadii iyo dadkii dadka u dagaalamayay. marka laakiin doodani maaha macni marka la yidhaahdo jabhadii waxbay laysaa ma jabhadii sidaasa yeesha in qofka la xidho ma ahe. waa in lala doodo oo doodiisa loo sheego, oo loo sheego inuu ahaa ciidan iyo dowlad hubaysan oo dayuurada wadata oo baybayo wadato shacab reer Soomaali ka mida la dagaalamaysay ayaad garab taagnayd oo aad ka mid ahayd. marka in la iska kaa celiya xaq bay ahayd.
dadkii la iska celinayuun baad ku jirtay si gaara reer samaroon la yidhao si gaara loo daydaeyo isaaq u daydaeyay muu jirine samaroon ayadaa dowlad quwad le la socotay oo ka garab dagaalamaysay oo dowladdaa ka mid ahayd xaq baanu u lahay inaynu iska celino xaq kuwaa kalunbay noola mid ahaayeen soomaalidii kale ayuunbaa ka mid ahayde markaa sidaa aawadeed in la iska kiin celiyaa xaq bay ahayd jabhaddii inay idinla dagaalanto dee walaal dowladda dhinaca ma uga baxdaan oo tidhaahdaan dad shacaba oo ehelka yaga ah oo weli reer ahaanna xiga oo deegaan ahaanna xiga la dagaalami mayno maxaa u odhan weydeen maydaan odhan dowladdii baa ka qayb ahaydeen waa la dagaalanteen noomaydaan turin idiinmaanaan turin waynu isdilay weliba annagu dowlad baanu haysanaayo dowlad ayaanu isdilay dalkii aynu ku darsanay oo shacabkiisii laynaya ayaad ka mid ahaydeen intaa in lagu yidhaahdo un weeye laakiin in la xidho oo afka la qabtaa waa khalad in la idhaha hadlina oo ma hadli kartid hadduu wax hibanayo eeg meesha tan waxa jira waa inaad fahantaan dadkii dowladdaasi yaad bare hogaamiyaasha ka ahaa anigu inkastoona shakhsiyan aaminsanayn inaynu reer ka go'nay oo inaynu reer nidhaahno reerkaasaanu ka go'nay oo reerkaasaanu la dagaalanay ma aha sida aad arkayso dadkaa samaroonta ka midka ah ee inala deganaa dalka ee reer ahaan dir la isku keen yidhaahdo waxay ka mid ahaayeen dowladdii soomaaliya waxay garab taagnaayeen oy ka garab dagaalamayeen dowladdii soomaaliya sidaa aawadeed inaynu nidhaahno reer daarood ah ayaa dagaal nagula jiray waxaan arkaa dad badan oo maxaanku idhahday daaroodka si gaara u yidhaahdo reerkaasa maxaanku idhahdaa la dagaalanay maya dowladdii soomaaliya oo cid waliba ka mid ahayd ayaynu la dagaalanay oo ina dulmiday ayaynu dulmigeedii iska dulqaadnay laakiin hadda maxaa socda hadda waxa socda olole ku socda somalilan oo la doonaya in beelaha reer somalilan la isku dilo in haddana waqtigii lagu celiyay in isaaq iyo soomaali inteeda kale loo kala baxo oo markaa waa taas la kicinayo goor walba lagu hadlahay maxaan leeyla waa laydin gumaysanayaa in isaaqoo beri idin laayay ayaa idin haysta olole noocaasa baa socda hormuud waxa ka ah siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada majooratigooda yahayn reerka daarood laakiin kuwa kale ee hawiyaha ihina waa ku taageersan dowladda xamar maanta ka jirtaana way ku taageersantahay ololaha lagu wada jiro ololahaasina waxa weeye in meel kasta oo somalilan dagaal laga rido beesha isaaq iyo inta kalena layska hor keeno marka anigu dowladdan waxaan kula talinaya horta inay xadhigan yarayso dadkana dooda u fasaxdo dadku dad aan lala doodi karin maaha dad aan runtooda loo sheegi karin maaha dadkan hadday beesha samaroon inugula doodo oy ina tidhaahdo berigii dad baa naga layseen dee waxaanu leenahay walaal beriga cadow isayabaynu ahay dowlad hub iyo ciidan iyo dayuurada wadata ayaad qayb ka ahayd oo waad nala dagaalamaysay markaa laysuma turaynin anna kuma turaynin adna iima turaynin kumanaan baa iga dhintay boorama way kuu dhisan tahay aniga dalkayga ciiddaa laga dhigay waay dayuurado iyo waxa la ila dhacay dabaabado dowlad ayaa ila dagaalamaysay marka anigu waxaan leeyahay dadka dooda ha loo fasaxo ha loona sii daayo ha lana fahmo waxa socda maanta ee ah in maxaanku idhahday reer kasta oo soomaaliyeed iyo isaaq la iska hor keeno sidii horeba u dhacday xooggana la saarayo beesha awdal degan iyo beeraha bariga degan marka anigu waxaan leeyahay dowladdu yay u sallixin oo iyadu xadhigan iyo waxaan ha yarayso dadkana dooda ha u fasaxdo hadduu yidhaahdo waana layseen dee waanu kulaynay adba wadna laynaysa yaa kuu turaya yaadse u turaysa
ما أنا ذي توريس ما يساق هذا توريس ماي دولة وحدي صار عضي أود لي وانسك كعلي لكن هذا تيوه إنه كان نمي أو بيش يساق ده كقول له كم متكأ إيه السلام لقى ما هاد لكرو وحوي السلام هرت جبهات بين هاي جبهات دي كور بين وقبحني قرم بينهم هاي dadkii aynu ishaynay ayaynu dawladda la leenay marka inaga ku dheenu kuma doodi karno